waan ku salaamay daawade ku soo dhow muuqaalkii maalin kastoo arbacaan kaga hadli jirnay atooraha caanka muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa atooraha reer Turki ee magaciisa loo yaqaano Merta haddaba daawade intaanaynu bilaabin taariikhda atoorahan fadlan subscribe saar isla markaana la wadaag asxaabtaada commentigana nugula wadaag atooraha jeclaan lahayd in laga soo warramo taariikhdiisa magaca rasmiga ah atoorahan waa Aras Bulat waxa uu dhashay 25 August 1990 waa atoor 32 jir ah waxay walaalayihiin hal wiil iyo hal gabadh oo dhamaantood ayaguna sidoo kale jila Marta waxa lagu tilmaamaa jilayaasha ugu firfircoon aflaamta Turkiga oo mihnad gaar u leh inuu jilo wax walba oo loo dhiibo waana mid kamid ah atoorayaasha ugu hantida badan oo waxa uu haystaa 5 ilaa 6 milyan oo dollar waxa lacagtaas la mid ah haysta atooriyahan ka soo hadalnay toddobaadadii hore ee gatay Olizow ama Serbi oo ah wiil aad u xifaaltamaan Aras Bulat waa atoor muslima isla markaana haysta diinta Islaamka musalsalkii ugu horeeyay oo ka soo muuqday Aras Bulat waxa uu ahaa musalsalkii afka Carabiga lagu oran jiray misla hada الوقت تضايع oo macnaheedu yahay waqtigan oo kale waxa uu socday filimkaasi 2010 ilaa 2013 halka uu musalsalkiisii labaad uu ka soo muuqday waxa Magnificent Century oo socday 2013 ilaa 2014 haddaba filimkii ugu horeeyay sida weyn ugu soo shaabaxay isla markaana uu caan ku noqday waxa uu ahaa filimkii la oran jiray Maral oo ay wada keeneen atooradda caanka ee reer Turki Hasan Kaliya ama Fariha hooyada laftarkeega aan ka hadalnay taariikhdeeda musalsalkaasi waxa uu soo baxay 2015 waxaana uu ku metelay magaca Serbi Atlan hadaba jiraagan waa iskaablo wali ma helin gabadhii nolosha la qaybsan lahaa hadaba xanta atoorayaasha aflaamta Turkiga matala ayaa waxay sheegayaan in atoorahan uu diiday inuu guri la galo ama uu guursado tiro gaaraysa 500 gabdhood atoorahan waa mid kamid ah atoorayaasha ugu muhiimsan ee awood dawladda ay jiraan doorar kasta oo loo dhiibo jiraagan sidaan hore soo sheegnay waa 22 jir isla markaana Turki asli ah muslim diinta Islaamka haysta balse musalsalada inta badan uu ku caan baxay waxa kamid ahaa musalsalka Marti iyo sidoo kale musalsalkii ay wada matalayeen Serbi isla markaana ay ahaayeen did si weyn u xifaaltama musalsalkaasi magaciisu waxa uu ahaa hawlgalka gudaha oo markaa la macneeyo ama luqadda Ingiriiska waxa lagu oran jiray intermission waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada